فكرت إن أنكو عيبي مر البابا أديك هذا هذي والإقامة مر البابا صبر كذا دكتي مر البابا هذا هذي ده قواد أبس عيبتان كوسو جدي أديك محيطها أديك النفس ده هان هذا عيبتان كوسو جدي محيطها أنا وحنا هاي أنا قال هاي ونفس ده أنا وهاي لكن أديك النفس ده هان هذا وحنا كوجو عيبي براني قداد عسي ما فاهم سنيب إنا لله وإنا إليه راجعون نكان هذا كيسان ومواد صوماليات وكنا الوطن قربها صوماليات waxay tiraahdaa nin adduunyo joogo maxaaragti ku laaban ninkani waa muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool wadamada qurbaha waxa uu ku faanaya inuu yahay nin la qabo isla markaasna uu qabo nin kale ereyada uu ku hadlay ninkan waxa kamid ahaa ee aan la yaabnay ninkeyga ayaan ka duceysanayaa maxaa yeelay waxa la yiri qofkii ka duceysta ninkiisa janno ayuu galayaa baa la yiri ninkani wuxuu cadeystay inuu yahay nin qaniisa ama laga roona ninkani hooyadiis ayuu si toos ah ula hadlayaa qadka telefoonka ayuu kula hadlayaa balse ninkan hooyadiisa way ilmeysay waxay tiri way ceebeysay meel kasta ayaa sawirada dhigtay oo meel kasta ayay ugu ceebeysay wuxuu bataagan yahay maxaan kuugu ceebeeyay gabdhaha waa la qabaa anigana waa la qabaa buu yiri ee maxaan kaga duwanahay gabdhaha in la guursado sharciga islaamka iyo diintana ayaa inoo baneysay balse adigoo nin rag ah yaa ku banay inaad nin kale aad guursato oo wali baad ku siifanto waayo asal buu xaydaa waad iga dhimatay aan kala dhimanna hadde yaana is sheeganin isma sheeganayna kuma sheeganay sababta ay tahay meel walbaba ereygaada lagu hayaa meel walbaba sawirkaada yaalla isma sheeganayna hay sheeganin haddaad rabto haddaad dhibkayga adana waxaas dhibkaad inaad isugisaada eebisaba adduunka baad iigu joogtooda maanta adii hayso deeqaw haddaan dhintana iimaani mana waxbana ii tarin hooyo hadda ana caabaan kusoo jeeday malaha aniga waxaan ahay qof duganaan ahay haddii adiga aad dareensan tahay oo adiga aad u fikiraysa inaan ku ceebeeyay ceebtaan kusoo jeeday adiga maxay tahay adiga nafsad ahaantaada ceebtaan kusoo jeeday maxay tahay aniga waxaan ahay aniga ahay oo nafsadeedaan u ahay laakiin adiga nafsad ahaantaada waxaan kugu ceebeeyay bar aniga iga dhaadhacsi ma fahansanayba waxa adin nafsadaada aad yeeshay oo suubinaysa adigu ceebeysay بس كوجو عيبة أديك كلا شخصي بقى من هاي هاي يعني كلا شخصي أنا هاي كلا شخصي أنا هاي يعني أديك وحي عيب أديك واحد أديك جيسته أي عيب كو إيمان سا لكن أنا واحد أنا جيسته سيدا عيب كو إيمان سا أديك أنا نفس الديدة نفس أنا هاي نفس الديدة هاي أنا نفس الديدة محاكم يمسن تتكاس كلها هاي واد ويلكاغو عيبة ما أنا نفس الديدة كم يمسن هاي وأنا ما دلني مية أديك وانكو دغيسنا يا وانكو مخلا هاي أنا لو حد هذا وقال قبا ينبان قبا أنت أتصل سنة لقبي مال بصور كذا يلا دوارن هاي تاس وارن هاي قبل هذا والقبا وحكة دوغا تاس وحكة دوغا انتهاي مالهن أنا عيبان كو عيبي مالهن ودي عمنا بالقبا منين على قبا دوال ها وشنسي بعد واحد ما بني يكرمود وانكو كرمود هو وشنسي وانا هاي اصل ما وان كادنتي باي وشيسي وانا هاي ديوس بانا هاي wax walba waana hay ay baana hay wax walba hal igu sheegay aniga waad ceebeysay laad aniga waxaan kugu ceebay oo aniga aadan kugu ceebay bar ii sheeg aniga taas waan garan lahay adigu waxa kugu muhiimsan adiga hooyo ahaantaad waxa adiga kugu muhiimsan dadkaas ku dhahayo waa ceeb waxaas oo adiga waxa adiga nafsad ahaantaada aad dareemayso aniga ayaa adiga ii ka muhiimsan adiga idashay waxa ka muhiimsan waxaas dadkaas ay sheegayaan aad kaaga muhiimsan niman way isqabaan meel walba dunidan maanta la joogo niman way isqabaan way isla xiriiraan way wada joogaan asal buu xaq dhaad waan ka dhinto hooyo waan kala dhimanay qabrigaaga dhimi imaanayo anigana hay sheegan warigaaba waa sidaas waxaad ii soo tartana malaha horta ma been baa lagu sheegay wali anigu waan iska joogay dunidu waan iska joogay ma ahana waad i keento ma ahana wax bin aadan oo loo taro uwadkiisa loo taro oo ii tartay aniga mala been baa la isku sheegay ya meeshaas aniga li qaraac jiray dil jiray oo iskuulka liga soo ceerin jiray waxaad iga ogeed ilaahay unta mala maraamarsinyadaada wuxuu ahaa adiga hooyo ahaantaadan ku sheegay maraamarsinyadaada wuxuu ahaa
inaad adiga dhahdo ubad kalaad raacaysaa koleeto waxaan kugu daalaya mala ya oo adiga markaad ilmahaad dhalayso oo intaasoo ilma aad dunidan keenaysay ya mise aniga aad keenaysay miya adiga go-aan mi ila tashata aniga dunidan markaad keenaysay markaad leeda waad ceebaysa aagtaan kuu keenay maxay tahay wadadkan miyaad isfahmaynin soomaali maxaa naga dhiga aniga soomaali maxamed maxaa naga dhiga waad ceebaysay leeda ani maxaan kugu ceebay aniga wax adiga kugu ceebay maanta oo adiga aan nafsada ahaantaada kugu ceebay bar ii sheeg warbeen maal isku sheegi hooyadan aan kuu sheegayo gabadheeda intay iskuulka bixisay bay gabar kale oo ayada dhashay ee shaqaale uga dhigtay oo mar walba gabadheeda kale markay soo qaraacdo madaxa ka qaraacdo gabadha kale ee ka soo carootay ee guriga imaatay waxay dhihi jirtay hooyoy aniga haddii aad gabadha walaashaada aad ka soo carootay mise ka soo tagtay ani ha sheeganin ku laabo oo mar walba gabadha kale ee la joogtay madaxa ka qaraaci jirtay iskuulka laga bixiyey ee shaqaale u ahayd ee guriga subaxda say usoo kacda la sayday ilaa ay habeenkii ee guri uga shaqayn jirtay marka dambena waxay ku qalabtay nafsad ku qalabsay gabadha ayada inay ka cararto walaasheed inay ka cararto nin oday oo markaa adiga 40 jir ayadoo ilmo yare inay guursato ay ku qasabtay nolosheeda alxamdulillah shukr maanta ilma meesha ka waday 9 ilmood u dhashay ilaaha u daay waa hooyo lagu sheegay Soomaali been maal isku sheeg waxa lagu leeyahay hooyada waxba hooyo waa tii ku dhashay hooyo iska dhalmiya hooyo tii ubadkeeda ilaaliso ubadkeeda korsato ubadkeeda wax u qabata ma ahayn Soomaali hadana oo ubadkeeda ogaata har iyo habeen hooyo umaalile hooyo way ku dhashadaas miya xaq kugu leedahay asal baan iska kala dhimana waxba yaan is sheegan aniga weligeyga dunida markaan inta aan joogay ilaa hadda waxaan dareemi jiray inaan qofna iga dhalan aniga qofna in la dhalanin qof inuu i dhalan dunidan kaligay inaan ahay ayaan weligey dareemi jiray waxaan aniga aan ahayna waan ku dareemi jiray hooyo sama hadda waa nooshahay waxaa la dhihi jiray oo la hooyo naxdin bay u dhimanaysaa waa nooshahay hadda waa taas ila murmaysaba geeradaadana ma imaanayaan is sheeganin caasi samaa caasi kii ugu darnaana aniga naar samaa naarta kii ugu kullaa angalo babeen baa la isku sheegi waxaa iga hanaajiyey maanta wayna ogeyd inaan duubaa codkeeda inaan duubaa way ogsooneed way jartay telefoonka ayadaa igu jartay igu jaraad sheegayo telefoon dambana ha iga qabanin aniga waama nisanayaaba waama idinkaan iga nisanaya inta rafaadkiina ii soo sheegi jirteen maalin walba aad igu bari jirteen hooyo lacag mala lacag ii soo dir kan baa saasa kuus baa saasa guri maxaa u dhisilaado heblow baa saasa sidaa yeel aad idhihi lahaadeen baaban idiga reesanaya waxaad ii sheegaysiin mala awooddeedana halkan ku imaaday awooddeeda maanta aniga aan sidan heerkan aan gaarsanaan soo gaarsiiyey awooddeeda maanta aniga aan ku noolaa qof nafsi qof oo aniga familigeyga aan wax ka sheegto ilaahay unta mala banaankaas weeweenta dunidaas weeweenta dib ha loo kala maro ya beentaa isku sheego meera hooyo waa wiil baariyaan ahaa aniga waan baari baan ahaa gabar baan guursanaya gabar baan wax beentaa in la wado umeera waan weligooda waxba yaana aniga been liima sheegayo koleeto waa daawatay klibyadeena klibkeena inaad daawato waad arki doontaa maanta wixii ka dambe xor baan ahay xor waxaan ka ahay familigeyga ya niyadeyda hadda wallaahi waxay waan careysanahay waxaan ku careysanahay hooyooyinka Soomaalida aan u careysanahay inaan ka sheegay halkan mari laakiin gabar baa shaleetay iska ooyneysay hooyadeeda sida u soo gashay iska ooyneysay waa hooyaa lagu leeyahay gabdhihii bay ku shaqaysanayeen shaqaale ka dhigeen gurigii wiilashii baa sida boqorinta intay jeeftaan sariiraha cuntadii ay karin wiilashii gurigii dharkii u dhaqi ya gabadhina waxay ka tahay gurigaas mala
waa iska shaqaale un hooyada waxay idhihi jirtay mar walba idhihi jirtay gabdhahaas iskuulka ee aadan yaa nimankooda way diyaarsan yihiin alaabtooda way gadan yihiin tukaan may alaabtooda tukaan bay yaalaan hore markay ka guursadaan alaabtooda wax walbo nin baa hore usoo shaqeeyey oo bas adiga yaa sigaar baa tuugan kartaa baa tuugsan doontaa maadaamaad iskuul aadaynin iskuulka waxaan u aadaynin koleeta way iska dhagatiraysa iskana indhatiraysa weligeeda kulligood waa lagu blaamka waa adiga khaladka adaa leh hooyo waa garteed baa lagu leeyahay garteeda maxay tahay hooyo hadday dhulkaas ugu hilmaantay waxba aysan kaa ogeen ilaahay unta ay ka ogtaa aysan jirin waan ooyay ku leedahay haddaad ooysan ani meeqaan ooynaya haweenii dhiraar baan oonaya oo ani aabba la-aanaan u oynaya oo hooyo la-aanaan u oynaya walaal la-aanaan u oynaya ciilkii hayaan u oynaya ilmo idileynaan u oynaya caydil iyo caynaan u oynaya ya ma oyin baa wax laiskaga qaaday caloolxumada laiskaga qaaday war waxaad ii sheegaysin mala ilaahay maa geeridaad ma berit imaato geeridaad berit ma imaato sidan hadda waabad iga dhimatay geeridaada sidan baabay tahayba iga dhimatay waad iga dhimatay telefoonkaygana maba haysidba kan waa kii shaqada hana iga soo wicin haddii aad iga soo cadan kaamaba qabanayo ma run baa laisu sheegin sabaan blog baaban ku saarayba hadda sida aad ii soo wicin waadi ceeysay ku leedahay maxaan kugu ceebay aniga maxaan kugu ceebay adiga aan kugu sameeyay adiga maxaan kugu sameeyay kala shakhsiyaana laba qof oo kala shakhsiyaana noloshaada adiga waxaad adiga galabsaday aniga hadda maanta haddaan wax galabsado oo dadka ay fiiriyaan ceebta aniga aan galabsaday ayaa ceebe adiga ceebtaan ku keenay maxay tahay mise dadkaas waxay dhahayaan dadka bini'aadanka waxay dhahayaan ba adiga kaa muhiimsan wiilka adiga dhashay oo 9 bilood caloosh ku soo wada koleet waxaad iga ogsooneed ma lahane hooyo beenbeeno hooyo aan jirin ilma markaan dheeli jirna aan la dheeli jiray baa gurye la dheeli jiray ninkayga waayo ilmahayga waayo beentaas ayaa aniga aan ku dhashay kuna soo koray wax liiga ogsoonaana mala been baa lisu sheegay war caasi maahana waxa doontiin igu sheega waxa aad doontiin igu sheega bye subxaan allah ilaahow soomaalideena soo hanuuni intooda qaldan soomaalidii waxay noqdeen wax gaalooba iyo dad noocaan ah oo aad u jeedaan ninkan islamarkaana uu ku faanayo in nin kale uu qabo xasbunallah wa nicmal wakiil ilaahayow fitanta sabankan dunida ka jirta eebow naga ilaali adiga ayaa wax walba ilaalin karee inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun